garabsato dayaxa guudkiisa degay kuliyo arkaan ku jiray bulan gul bay hesho adduunyada garabsato dayaxa guudkiisa degay الرحمن الرحيم halka waxa aan wada joognaa golaha xukuumadda oo ay ka socdaan wasiirka wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta wasiir ku-xigeenka dakhliga taliye saldhigga maamulaha muxuu ahayd kasamka dekada boosood injineerka shirkadda muxuu ahayd wakiilka anaga noo ah marbar ka socda oo shirkadda dhisaysa dekedan halkan waxaanu ku nimi koox wasiira oo shaqo looga soo diray gobolada bari iyo karkaar shaqa nooga socota oo mid amni iyo mid kale taa barina maxaa hawlo badan baan u nimi badankood way noo qabsoomeen qaybna wali way naga dhiman yihiin oo muxuu ahayd may gacantaanu kula jiraa saaka waxaanu nimi bisha uga soo kooyo sodol dekada qaybtii dhismaha muxuu ahayd ballaarinta dekada boosood runtii waxa ka socota shaqo aad iyo aad loogu farxo oo ay wado shirkadda marmar oo ay dhaqaalaheedana maxaa DP iyo dawladda Puntland ay wadaageen oo ay bixinayaan shaqadaasi waxay maraysaa heer gabagaba ah waxa laga yaabaa nowadays bariyahan soo socdo inay bilahan 2 bilood 3 bilood ugu badnaan in maxaa shaqadan ay dhammaan doonto halkan maxaa xafladda furitaanka lagu qaban doono shaqo runtii lagu qanci karo injineero Soomaaliyeed oo reer Puntland ay goobjoog ka yihiin oo ay supervisionka ay hayaan oo ilaalinayaan haday ciid noqon lahayd haday bir noqon lahayd haday shaqo kale noqon lahayd runtii oo dhalinyaro dibadda ka timi oo u soo bartay dalkooda kuwaas oo muxuu ahayd waxna ku baranaya ilaalinayana muxuu ahayd tayada waxaan loo qabanayo dadweynaha reer Puntland aad iyo aad baan raalli uga nahay maanta waxaan booqasho ku nimid maaragtay dekada oo shaqo ka socoto muddadaana socotay shaqadaas oo ballaarinta dekada ah shirkadda almarmar ay wado booqashadeeni waxay ku saabsaneed dhaqdhaqaaqa shaqada heerka uu gaarsiisan yahay sida qorshuhu yahay waxay ku dhammaan doontaa sida loo qorsheeyey ku socotaa intaa waxaa dheer magaalada boosaaso ku joogtay dhowr wasiira annagoo ah shaqo baan u nimid magaalada boosaaso sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda horumarinta iyo amniga ay ka socday magaalada boosaaso marmarmaan u joognay qayb ka mid ah waa maanta joogtahay oo waatan oo dekadii ay ka mid tahay oo dakhligii iyo shaqada socotay labadaba aan soo indhaynay shaqo badan oo kale waa noo dhiman waan rajeynayna insha allahu tacaala maalmaha soo socota inay soo gudbo magaalada runtii waxaa ka muuqanaysa in la xagaa baxay insha allah waxaan rajeynaynaa dhowaan in mashaariicdii korontada